taariikhda Salmaan Qaan wuxuu dhashay 27 Diseembar sanadkii 1965 magaciisa saxda ahi waa Cabdirashiid Saliif Salmaan Qaan waana jilaa u dhashay wadanka Hindiya iyo heesaa wuxuuna ka tirsan yahay shirkadda Bollywoodka Salmaan Qaan wuxuu fanka Hindiya ku jiraa in ka badan 30 sano Salmaan Qaan wuxuu gaaray darajada ugu sareysa ee uu atooro gaari lahaa waana mega star wuxuuna ka mid yahay atoorayaasha darajadaasi gaaray Salmaan Qaan waxaa lagu sheegaa inuu yahay shakhsiga ugu caansan gudaha Hindiya wuxuuna shacbiyad iyo taageero ballaaran ku leeyahay qaaradda Aasiya iyo dhammaan daafaha dunida Salmaan Qaan wuxuu ka mid yahay 10 atoore ee taariikhda fanka Hindiya ugu awoodda badan markii ay noqoto dhanka guulaha wuxuuna ka soo gelayaa safka hore noloshiisa gaarka ah markaan eegno Salmaan Qaan waa 17 jir aan weligiis guursan Salmaan Qaan waxaa aabbo ah filim qoraaga caanka ah ee reer Hindiya Saliim Qaan kaasoo qoray aflaantii Hindiya ugu caansaneed uguna guulaha badneed 70-aadkii iyo 80-aadkii oo laga xusi karo inuu qoray filimkii Shoolay Salmaan aabihiis waa muslim hooyadiisna waa Hindu isagana shaki ayaa ku jira diintiisa maadaama uu sheegay inuu muslim iyo Hindu isku yahay asal ahaan Salmaan Qaan wuxuu ka soo jeedaa wadanka Afghanistan maadaama uu awowgiis Cabdirashiid Qaan uu ka soo jeedo wadankaasi sidoo kale Salmaan Qaan waxaa la dhashay laba wiil oo lagu kala magacaabo Arbaas iyo Sohil Qaan iyo sidoo kale laba gabdhood waxbarashadiisu waxay gaarsiisan tahay ilaa dugsi sare oo waxbarashadii waa uu isaga tagay markii uu dhameeyay iskuulka sare Salmaan Qaan wuxuu fanka ku soo biiray sanadkii 1988 wuxuuna ahaa filimkii koowaad ee uu ka soo muuqday Bibi Ota Hai filimkaana wuxuu ka ahaa kaliya atoore caawiye cid xusuusatayna ma jirto inuu saameyn ku lahaa filimkani guud ahaanna waa uu guuldareystay mashruucaani laakiin filimkii uu Hindiya ku qabsaday adduunkan oo isku baray wuxuu ahaa mashruucii Minan Biyarkiya wuxuuna soo baxay sanadkii 1989 filimkanina wuxuu ku dhawaaday inuu jabiyo skoorkii abid ee filimka Shoolay